halkani waa bartamaha suuqa magaalada Boorama oo iskugu yimaadeen kumanaan ka mid ah shacabka kala duwan ee ku nool magaalada Boorama kuwaasi oo habeen iyo maalinba u diyaar garoobaya farxadda munaasabadda Ciidul Fidri oo dhawaan fooday nagu soo haysay iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyay bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa waxa shacabka kala duwan ee ku nool magaalada Boorama wajiyadooda ka dheehanaysa farxadda u diyaar garowga munaasabadda Ciidul Fidri ciidda waxa weeyaan aad baa loogu diyaar garoobaya oo waxaad ka arkaysaa suuqa oo xoog u camiran ayaad ka dareemaysaa marka waxa weeyaan ciidankuna heegan weeyaan oo habeenkii amniga aad bay u sugan marka ciidii hore waxay kaga duwan tahay maalmihii ugu dambeeyay ayaa la diyaar garoobay oo waxa weeyaan contribution badan ayaa dadka ka baxay oo abaara jireehayd marka suuqii waa heenay weynaaye Hargeysana waad ogtahay inuu gubtay marka insha Allah taala waxaan leenahay ciidda waan soo dhaweynayna waxaan ugu bishaaraynayaa Ramadaan oo sii dhamaanaysa iyo ciidii la saddex soo dadkina wax wada iibsanayaan oo suuqa aad u shidan yahay dibeetana waxaan ka mid nahay ganacsatada ka shaqeysa suuqa dhexdiisa aad baan u faraxsanahay shacabkuna si fiican wax looga iibsadeen aad baan u soo dhaweynaynaa qowdhaxaya waxa weeyaan dadku ka badan yihiin dad sidii hore ciidii hore ka fara badan yihiin markaasayeen bulshadii awal ciidii hore soo marjitay bulshadana way kala badan tahay dadweynaha ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay bisheeda waxa weeye si maaragtay wanaagsan oo khayr qabta Allah inuu gaarsiiyo oo waxa weeye kuwa cibaado laga aqbalo oo maxaan ku raada Laylatul Qadriga maaragtay la kulma Allah inaga dhigo u diyaar garow badan baa jira magaalada Boorama siiba waxaan salaamayaa dadka muslimka ah meel kasta ay joogaan iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ciideena horta sanadkii hore markaad eegto COVID-19 baa jiro dadku taraawixda way iska xidhnaayeen oo lama tageyn inkastoo yaraa markii xilligan oo kale ay ahayd haddana sanadkan hoos buu sii dhacay marka bulshadii way soo kacday inay dadkii intii hore ka bataan sidii hore ciidii loogu diyaar galoobo inkastoo moodo haddana inuu ina saameeyay suuqeennii way ahaan ee gubtay garanaysa dhibaatadiisa ilaa ay maanta sii muuqato insha Allah taala ciidii hore waxay kaga duwan tahay ciidii hore roobkii daaya dhulka barwaaqo insha Allah waan soo dhaweynaa shacabkana waan soo dhaweynaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay caafimaad qab iyo cimri dharar ay nagu gaarsiiyo ciida iyo ciideedaba bashbashiga barwaaqo ana waxaan ka mid ahay macaamiisha ku xidhan carwo kooshin waxaan nahay dadka sida fiican uga adeegta waxaan la ii sameeyay discount aad u fiican bulshooyinka magaalada Boorama waxaan ku soo dhaweynayaa maxay munaasabada ciidda waxaan inahay dharkii ciidda noocyadiisa kala duwan gooshaaladii macaamusihii cimaamadihii shaarashi inta wada inahay oo qiimo macquul ah ku helaysiin ciidii hore maxay farq weyn baa u dhaxeeya marka maxay waxaad ka dareemaysaa xagga dhaqdhaqaaqa suuqa aad iyo aad iskuma dhawo waxaan uga diyaar garoobay si fiican ciid wanaagsan weeye xaleenahay ummadda muslimiinta ah caafimaadka ciida waxaan oran lahaa kulli ciidu waxa weeyaan shay walba teetal beelada teetalka ciidu waxa weeyaan wax culimada looga dambeeyo iyo wasiirka diinta waqaafta kulka inagu waynu sugaynaa insha Allah intaan waan iska soo soobaynaa anu waxa kamid ahaa raggu sheekhu ahaa wasiir Albani waxaan soo soomay 8 cisho ilaahay ma aad ka gaadho inaan dhameysano rajaynaa insha Allah taala haddaan dhameysano wanana de ilaahay baan qadaminay insaanu qadamay waxaan leenahay waanu qalaynaa hadii maanta naga dhinaato laakiin waxa fulinayna kelmadii ahayd adiicu Allah wa adiicu rasuulahu wallahu minkum hawsugan wuxuu noo joogaa waa markaynu ka hadlayno nidaamkan ku jirno Soomaaliland waa shakhsiga diinta noo qaabilsan way isagana waxaan leeyahay dhamaanteena dambigeena Allah dhaafo ummaduna ay soo dhafiso waxaan quruxdan siyaasadda diinta la kala saaro wasiirku markuu dhaw wasaasay tahay waa in la raaco wasiirka inagana saasa khayr noogu jira in khilaafka laga dhaaraado mar kasta inta waxaan ku soo koobaya dhamaan ummadda islaamka dhamaan salaamaya ilaahay acmaashana saalixa Allah inaga aqbalo waxaan leeyahay bisheeda khayr iyo bashbashee barwaaqo Allah inuu gaarsiiyo qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber